السلام عليكم. markii aan arkay baahida xoogan ee u qabaan dhalinta barashada xirfad khaasatan digital marketing waxaan go'aansaday in aan si free ah koorsooyin u soo gudbiyo. koorsada ugu horeyso aan idin soo diyaariyay waa social media marketing. haddii aad koorsadan dhameyso waxaad awoodi doontaa in aad xayeysiimaha u sameyso shirkadaha kala duwan sida xayeysiimaha Facebook ama Meta Ads. si dhameystiran ayaad u awoodi doontaa in aad u maamusho xayeysiimahooda. waxaan rajaynayaa in aad dhameysan doontid koorsadan wax badan aad ka faa'iidi doontid. nagu soo biir baraheena social media sida YouTube, Facebook iyo TikTok. mahadsanid. haddii aan bilaabano koorsadeena social media marketing, koorsadaas oo aan ku baranayno sida loo sameeyo xayeysiimaha social media marketing. waxaan ku baran doonaa ciwaanadan soo socdo ama waxaan u qaybin doonaa intaasoo muuqaaladan bilow ilaa dhammaad ayaan ku baran doonaa social media marketing wuxuu yahay iyo sida uu shaqeeyo. muuqaalkeena koowaad oo hadda aan ku guda jirno waxaan ku baranaynaa hordhaca social media marketing annagoo waxyaabo badan oo hordhac ah sameynayno inta aan guda gelin waxyaabaha muhiimka u ah koorsadeena. muuqaalkeena labaad waxaan ku baran doonaa social media platformyada social mediaha iyo sida u shaqeeyaan platformyadaas. si guud ayaan waxaan ka qaadan doonaa especially Meta iyo social media platformska kale ayaan concept ka qaadan doonaa inta aan guda gelin sida u shaqeysa xayeysiimaheena. waxaan kaloo aan baran doonaa koorsadeena social media marketingka guda ku jirno. muuqaalkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa first step to advertise on Facebook. macnaha tilaabta ugu horeysa aan qaadayno si aan Facebook xayeysiin ugu sameyno maxay noqonaysaa. muuqaalkeena afraad waxaan ku baran doonaa introduction to Ads Manager. Ads Manager wax la dhahayo si uu u shaqeeyo iyo basic conceptskiisa ama waxyaabaha muhiimka u ahna ku baran doonaa. muuqaalkeena shanaad wuxuu noqon doonaa sida loo abuuro audience markii la joogo Ads Manager. waxaa baran doonaa sida Facebook pixel loogu xiro iyo waxyaabo kaleeto custom audience, lookalike audience iyo waxyaabo la xiriiro dhanka audience-ga ama si loo helo right people, dadka ugu wanaagsan si target ah ugu dhigan lahayd ayaan baranaynaa. muuqaalkeena lixaad waxaan ku baran doonaa sida loo abuuro campaign ama xayeysiin la dhaho awareness. waxaan ku baran doonaa muuqaalkaas waxaan ku baran doonaa qeybo kala duwan xayeysiimo ah oo awareness isku wada ah ama brand awareness wax la dhahayo. waxaa kaloo muuqaaladeena soo xiga oo muuqaalka toddobaad oo kale waxaan ku qaadanaynaa sida xayeysiimaha engagement la dhahayo loo abuuro. waxaa baranaynaa muuqaalka sideedaad sida loo abuuro lead campaign ama xayeysiimaha leadka la xiriiro ama sida formka iyo waxyaabahaas la xiriiro. muuqaalkeena sagaalaad waxaan ku baran doonaa sida loo abuuro xayeysiimo sales ah oo conversion ah ama website ha noqoto ama meel kale ha noqoto ama application ama WhatsApp hadba wixii ay tahay. muuqaalkeena tobanaad waxaan ku baran doonaa maadaama xayeysiimo aan soo sameynay sida aad ku fahmi laheeday campaign result. xayeysiinta aad sameysay resultgeeda report inaad sameyn kartid, analyze inaad sameyn kartid. waxyaabahaas ayaan baranaynaa. waxaan kaloo baran doonaa sida loo dhiso smart goal wax la dhahayo, sida loo dhiso KPI, sida loo dhiso ROI. intaasba waxaan baran doonaa sida waxyaabahaas loo dhiso. muuqaalkeena qaybta kan ugu dambeeyo ama gunaanadka koorsadeena social media marketing waxaan ku baran doonaa sida shahaadooyin caalami ah loo qaato, sida shahaadooyin oo shirkado waaweyn ay bixishaan sida u qaadan laheeday, meesha aad u mari laheeday, qaabka kugu fududaan laheeday iyo markii aad shahaadooyinkaas qaadato xirfadina aad barato sidii aad ku shaqeyn laheed, aad dakhli uga sameyn laheeday, aad uga xoroobi laheeday in aad shaqo subaxdii ilaa galabtii ama ilaa habeenkii la aadayo aad u ahatid adigoo xaafadaada ama meelaha adi aarabta joogtid sidaa u shaqeynsan laheeday. intaas ayay noo noqon doontaa. waxaan rajaynaa inaad bilow ilaa dhammaad aad la soco doontid aysan dhicin inaad muuqaalka koowaad bis aad daawato muuqaalada kaleetana iska daysid. haddii aad xiiseynaysid inaad barato social media marketing muuqaalkan bilow ilaa dhammaad qaado, wuu ku anfici doonaa. wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah.
marka muuqaalkeena koowaad oo ah hordhaca social media marketing ayaa sii guda geli doonaa ama aan ku guda jirnaa. Okay, social media marketing waxyaabaha hordhaca waxaa kamid ah in aan barano macnaha hordhaca social media ama maxaa la dhahaa social media maxay u qaybsantaa waxyaabaas ayaa inoo muhiim ah. Okay, maanta la joogo social media wuxuu noqday mid kamid ah waxyaabaha nolosheena kamid ah macnaha daily life keena ayuu kamid noqday kasoo bilaabato in aan asxaab kula xiriirno ama in aan familkeena qaraabadeena aan kula xiriirno in aan ganacsiga ku sameeyno promoting ama xayeysiimo ganacsi loogu sameeyo waxyaabahaas oo dhan iyadoo la isticmaalayo social media platformyada ugu caansan social media waxay noqotay mid kamid ah waxyaabaha dadka noloshooda kamid ah maanta saacadaha ugu badan waxa ku qaadataa social media haddii noqoto TikTok, Facebook, YouTube. So marka maadaama dadka ay waqtigooda ugu fara badan ay ku qaadanayaan social media waxaa kaloo fursad ah ganacsatadu waxay u tahay fursad caalami ah maadaama dadkii targetka u ahaa ee social media ku jiraan ganacsigooda waxay ku tusi karaan social media gudihiisa. waxaa la dhahaa hadda markii la sameeyay saadaalin ama markii la analyze gareeyay oo sanadka 2024 in ka badan 5 bilyan oo active users ah ayaa maalin walba ku jirto ama isticmaasho social media. Social media hadii uu Facebook waxyaabahaas oo dhan ayaa waxa la isku dhahaa social media marketing. waxaa la dhihi karaa 62% dadka si active ah oo maalinle ah ay u isticmaalaan baraha bulshada. So marka waa fursad aad u balaaran markii loo fiiriyo ganacsiyaasha. Okay, hadda waa maxay social media marketing? Social media marketing waxaa la dhihi karnaa waa xayeysiimaha lagu sameeyo social media journalistka ama kanaalada social media in lagu sameeyo promote macnaha in xayeysiin lagu sameeyo sida xayeysiin lagu sameeyo product hadday noqoto service ama hadday noqoto idea in lagu sameeyo xayeysiin iyadoo la isticmaalayo social media platforms sida social media platform waxaa kamid ah Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn iyo waxyaabahaas iyadoo la isticmaalayo in xayeysiin lagu suubiyo. marka waxaa dhihi karnaa marka xayeysiintaas la suubinayo ganacsatadu waxay labalaab ama waxay kor u qaadayaan in la arko waxay yihiin macnaha brand awareness in loo sameeyo inay dadka gaarto waxay kaloo ka caawiyaa ama social media in website-kooda ganacsiga la soo booqasho badan oo helo in maaragtay ay helaan form fara badan emailo numbero waxyaabahaas inay helaan iyo inay sameeyaan conversion oo mid loo socdo ay tahay. laakiin si conversion loo sameeyo waa in waxyaabahaas la soo maraa waa in la helaa awareness waa in la helaa traffic waa in la helaa lead form ama number ama WhatsApp ama maaragtay email waxyaabahaas in la helaa bacdeen ay waxay noqonaysaa conversion in qofkii oo noqdo customer. social media marka waa xayeysiimaha lagu sameeyo social media ay waxa loo yaqaanaa social media marketing. Okay, waxaan dhihi karnaa marka meeqa loo qaybiyaa social media marketing? si guud sometimes waxaa arkaysaa 2 iyadoo loo qaybinayo 4 iyadoo loo qaybinayo laakiin anaga hadda waxa u qaybinaynaa sida badanka 3 ayaa loo qaybiyaa. midka koowaad oo loo yaqaano organic social media marketing. Organic social media marketing waxa waaye waa in tusaale businessyada ama business ha noqoto ama shirkad u xeerta ha noqoto in ay si organic ah ay ku soo sameyso posti ama muuqaal ama qoraal inay social media-heeda soo dhigto iyadoo targetkeedu ay tahay inay community badan abuurto dad badan la ogaado si organically ah macnaha iyadoo wax lacag ku bixinaynin in contents ay la wadaagto bulshada ku xiran. content hadda ku dhahana waa sawir waa muuqaal waa qoraal waxyaabahaas waxaa la dhahaa content marketing waaye. so marka iyadoo wax lacag la bixinaynin markii wax dadka loola wadaagi tago waxaa la dhahaa waa organic social media marketing. midka labaad waxaa la dhahaa paid social media marketing. waxaan dhihi karnaa paid social media marketing waxa waaye waa markii la isticmaalayo xayeysiin oo lacag ah iyadoo la adeegsanayo social media si loo helo ama si loo xayeysiiyo productigaas ama servicekaas si loo xayeysiiyo ayaa waxa loo yaqaanaa paid social media marketing iyadoo la target gareenayo audience ama target audience qaas ah ama wadan ha noqoto ama dadka si kala duwan yihiin ha noqoto. marka lacag ayaa ku bixinaysaa si dad ay u arkaan muuqaalkaaga si dad ay u arkaan sawirkaaga si dad ay u arkaan qoraalkaaga ama si website-kaaga loo soo booqdo conversion loo sameeyo awareness ani xayeysiin ah oo lacag ku bixinaysa waxaa loo yaqaanaa paid social media marketing.
midka saddexaad waa influencer social media marketing dadka caanka ah iyadoo la isticmaalayo in xayeysiin laga sameeyo soo marka waxaa dhihi karnaa shirkada waxay sameynaysaa xayeysiin iyadoo adeegsanayso qof caan ah ay ku xiran tahay intaasoo milyan ama intaasoo kun oo qofood ay ku xiran tahay ayaa meeshiisa waxay kusoo gudbinaysaa ama muuqaalkiisa ama wuxuu soo dhigo xayeysiin ayay soo dhex marsiisanaysaa xayeysiinta noocaasa waxaa la dhahaa influencer marketing okay weli waxaan ku jirnaa hordhac muuqaalka ku xigo ayaa ku baran doontaa toos waxa u geli doonaa koorsadeena waxyaabaha muhiimka ah ama gudaha okay halkan waxaan ku soo qaadanaynaa social media terminologies ama erayaal aad arki doonto mar walba anagoo adeegsanayno anagoona tacbiirinaynin anagoona macnaha Soomaali ahaan u sheegin mar walba eraygaas adoo la isticmaalay ayaa arkaysaa okay waxaa arkaysaa waxa la dhahayo A/B test waa arkaysaa mar walba iyadoo la isticmaalayo A/B test waxaa la dhahaa waa xayeysiin oo A iyo B in la isku tijaabiyo mid guuleysato la ogaado meena A/B test yaa jirto waxaa arkaysaa midka labaad iyadoo la dhahayo ads manager maxaa waaye waa meel laga maamulo xayeysiimaha algorithm kamida terminologieskeeda algorithm maxaa waaye waa mathematical in aan fahano qaabka u shaqeeyo algorithmka Facebook TikTok YouTube qaabka oo macnaha muuqaalada u baahiyo oo macnaha u rabo size-ka hadday tahay cabirka hadday tahay qoraalka hadday tahay qaab kasto inaan la fahno algorithm laha analytics waxa markii aan sameynayno reportka ama markii oo eraygaas aad loo isticmaalaa Google Analytics ama Facebook Analytics na wajirtaa markii aad xayeysiinta aad sameysay markii aad rabto inaad analyze gareyso analytics eraygaas very important waaye audience waxaa arkaysaa erayga audience more times anagoo isticmaalayno audience maxaa waaye waa dadka aad target gareynaysid xayeysiintaada in ay gaarto noocay rabaan ha noqdo business to business xayeysiinta markay tahay business to business B2C idoo la arkaysaa iyo B2C labadoosba eraygaas B2B hadaa sidoo kale waa business to business okay brand awareness ayaa loo isticmaali doonaa waa xayeysiin qayb kamida oo la dhaho in dadka la gaarsiiyo meena targetkeedu waxa waaye in dad ay iska gaarto meena wax target kale ma lihid in lagu soo amartid in macnaha kaliya in ogeysiiso kale meena waxa kaloo jira business manager waa qayb kamida terminologieska oo ku jiro social media marketing macnaha marka hadda aan sameynayno Facebook business manager oo baahanaa meel aan ka maamulno xayeysiintaas click through rate ama CTR erga CTR marka aragna maxaa waaye waa click through rate sina si fiican u baran doonaa conversion rate ama tusaale marka conversion dhaco markii rate lagu sameeyo ama percent laga dhigo CVR idoo la arkaysa CTR CVR waxyaabahaas dhan waa arkaysaa maxaa kamid ah cost per click ama CBC erga CBC marka aragna maxaa loo jeedaa cost per click engagement rate waa jira impression sina waxa waaye laba shay aad jirto impression iyo reach waa arkaysaa impression marka mar walba impressionka ayaa weyn reachka ayaa soo macnaha sab ah ama soo dhexgalayo tusaale haddii aad Facebook joogto adiga marka wixii aad ku hagato oo fiirsato reach way noqonaysaa impression way noqonaysaa laakiin waxa ku hakan oo aad u xawaareynaysid tusaale shay aad u xawaareynaysaa waa mooday so this uu ku gaaray macnaha impression waaye laakiin macnaha marka aad daawato reach ay noqonaysaa okay waxa kaloo jiro wax la hayo KPI ama maaragtay key performance indicator oo ah in aad maaragtay erayaasha kamida qaybta dambe ku baran doonaa markii smart goal keeni KPI ayna sameynayno KPI waa in aad la tacaamushaa afahantaa okay pay per click meelaha xayeysiinta markaa sameynayso qof walba click uu siin lacag ay baxdana waa saari kartaa conversion waa la saari karaa waxyaabo kala duwan leedahay pay per click marka maxaa waaye waa BBC marka erayga BBC hada aragna maxaa waaye waa pay per click platform mar walba waxa arkaysaa platform anaga isticmaalayno social media marka waa aalada meesha oo macnaha soo aad joogto hadii tahay Facebook platform TikTok platform YouTube platform waxyaabahaas oo dhan waa platforms reach markii xayeysiinta macnaha inta qof ay gaartay waxa dhahnaa waa reach traffic dadka soo booqday oo meeshaas macnaha oo la gaarsiiyay ama website-kaas imaaday soo booqday eraygaas traffic aad u isticmaalaysaa waxaa kaloo aad loo isticmaalaa return on investment macnaha waxa ka soo laabtay investor oo ay waxaan markii xayeysiinta la sameeyay hawshan la qabtay
business kan xayisiin loo sameeyay maxaa ka soo laabtay ROI ga ina cabiri kartid minaa xayisiinta la sameeyay ROI ga maxaa waa iyo waxa kala jiro ROAS wax loo soo gaabsho ama return on ad spend minaa xayisiinta la sameeyay kaligeed maxaa ka soo laabtay marka waxaa jirta mathematical ama qaacidooyin ay leeyihiin ROAS iyo ROI waxyaabahaas dhan waxaa ku baran doonaa qaybta gadaale muuqaalkeena hordhac intaas ayuu ku eg yahay waxaan rajeynaa cashirka xigo in aad si fiican ula socotid sida noola socoto YouTube-keena Facebook-keena iyo TikTok-keena kusoo biir la soco waxaan kuusoo gudbin doonaa social media marketing koorsadan oo 14 muuqaal ah buugaaga qalinkaaga kombiyuutarkaaga halkan soo dhigo cashirkaas ayaa inoo balanaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته